magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland maanta waxa laga raafayaa oramadii ku noolayd gudaha magaalada Hargeysa raaf ka dhanaha ayaa ku bilowday oo laga bixinayo guud ahaanba Soomaaliland arrintan ayaa waxay imaatay daawadayaal dhawaan marka mid ka mid ah dhalinyarta ka soo jeeda qoomiyadda oramada oo xilli uu tagay magaalada Hargeysa qoraal uu ka qoray uu ku sheegay in Hargeysa berbera ila Boorama ay tahay dhul oramo haddaba dhalinyarta reer Hargeysa iyo sidoo kale reer Soomaaliland guud ahaan aad ay uga cadhoodeen hadalkaasi waa in ka falceliyeen wiilkaasi oramada habaahiyay iyaga oo gadoodsanna waxa ay kula dhaceen maamulkii maantana waxa ka hadlay barasaabka magaalada Hargeysa kaasoo si cad u sheegay in oramadu ay yihiin dad wuxuush ahaa dad boob iyo dhac ku caanbaxay isla markaana magaalada Hargeysa ay noqotay meel amni darro ah waxa uuna sheegay in la raafayo oo laga sifaynayo